Booliiska London ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaac ka qaadista orodyahan Mo Farah ee ah isaga oo caruur ah si tahriibin ah oo sharci darro ah lagu soo geliyay UK. Baaritaanka ayaa imaanaya kadib markii Mo oo 39 jir ah uu dukumeentari ku sheegay in haweeney uusan aqoon ay keentay UK markii uu ahaa 8 sano jir, isla markaana lagu qasbay inuu daryeelo carruurteeda. Waxa uu sheegay inaan loo ogolaan in uu iskuul aado ilaa uu ka gaaray 12 sano. Dukumeentariga oo ay soo saareen BBC iyo Red Bull Studio ayuu Mo Farah ku sheegay in magaciisa runta ah uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. Waxa uu shaaciyay in Britain lagu keenay iyada oo la adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyay sawirkiisa iyo magaca Mohamed Farah oo ah kan uu isaga oo isticmaalaya oo ku guuleystay 4 bilood oo dahab ah oo cayaaraha Olombikada ah. Waxaan ka warhaynaa warbixinada warbaahineed ee ku saabsan sir Mo Farah. Weli warbixin toos ah sooma gaarin MBS xilligan, ayaa booliisku London ku yiraahdeen war-saxaafadeed ay soo saareen. Saraakiil ku xeel dheer arrintan ayaa furay baaritaan waxayna hadda qiimeynayaan akhbaaraadka la heli karo. Mo Farah ayaa hore u sheegay inuu Britain la yimid waalidkiis isaga oo ka soo qaxay Soomaaliya, balse dukumeentariga BBC-da wuxuu ku caddeeyay in waalidkiis aysan weligood iman UK. Aabihiis waxaa dishay xabad intii ay socdeen dagaalada sokeeye ee Soomaaliya markii Mo Farah uu ahaa 4 jir, sida lagu sheegay filimka. Hooyadiis iyo 2 wiil oo la dhashay waxay ku nool yihiin Somaliland oo ah gobol sheegta inuu ka go'ay Soomaaliya balse aan haysan aqoonsi caalami ah. Mo Farah ayaa dukumeentariga ku sheegay macalinkiisa cayaaraha Alan uu ka caawiyay inuu dhalashada UK qaato isaga oo adeegsanaya magaca Mohamed Farah. Dowladda UK ayaa sheegtay inaysan wax tallaabo ah ka qaadi doonin Mo Farah oo la xiriira inuu jebiyay sharciyada socdaalka. Mo Farah wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu matalay Britain.